Champions xulka qaranka Senegal ayaa ku guuleystay koobka qaramada Afrika kadib markay Masar ay rigorayaal ku garaaceen ninkii Maxamed Saalax oo ilaa hadda la aaminsan yahay iyo Mane oo dabaaldegaya Senegal markii ugu horeysay ku guuleystay koobka qaarada Afrika iyagoo rigorayaal ku garaacay wadanka Masar ee iska haystay koobkan iyagoo 4-2 ku garaacay. Senegal ayaa weligood horey ugu guuleysan tartanka. Senegal ayaa iska soo maydhay ceebtii hore ee finaalkii hore kaga dhacday wadanka Algeria uu ka qaaday koobkan. Mane ayaa noqday halyeyga xulka u dhaliyay rigooradii koobka ay ku qaadeen inkastoo uu bilowgii ciyaarta u lumiyay rigoore Maxamed Saalax uu qishay odayga. ciyaarta inteeda badan Senegal ayaa gacanta ku haysay fursado badan oo ay heleen kamay faa'iideysan halka Masar ay kubadaha ku luminayeen intayna soo gaadhay baxrada ganaaxa. xulka qaranka Senegal ayaa ciyaarta inta badan gacanta ku hayay iyagoo weerar aan kala joogsi lahayn ku soo qaadayay maxaa la dhahaa daafacyada Masar garbaha iyo dhexdaba inta uu kaga socdeen. Mane iyo Ismaacil Sarr iyo ciyaarta aad u weerarayay nimanka Masar oo inta badan ay daafac ku jiray. Maxamed Saalax oo indhaha caalamku eegayeen ciyaartan kubadaha inta badan ciyaarta qaybtii hore waxba ma hayno kubadaha muu taabanayn marka kubadba ma soo gaadhayn odayga marka waxa laga haystay Masar dhaxda ayaa ciyaarta qaybtii hore waxa loo dhigay penalty kaasoo faarta laga soo hubiyay laakiin Mane kama faa'iideysan penaltiga ninkan goalkeeper anigu waan ka yaabay Maxamed Gabasi warinkaas caadi maaha tolo ninkaas ama Premier League inoogu yimaada waninkaas waa nin khatar ah uu maxaa la dhahaa Maxamed Saalax uu u qishay odayga ku yiri war halkaas uu ka dhigayaaye kubadda qabo uu sidii ku qabtay marka ninkii Mane ahaa marbii ceebab gaadhay laakiin ceebtii markii dambe waa iska meedhay oo rigooradii ay guusha ku qaadeen koobka ku qaadeen buu ku guuleystay marka ciyaar aad u xiiso badan bay ahayd. ciyaarta inta badanna waxa gacanta ku hayay Senegal ayaa gacanta ku haysay Mendy ninkii gacmo dahabla heer Chelsea ula baxeen ninkaas waxaan islahaa penaltiyada waa ku fashilan yahay oo ma qabto oo inta badan mayno arag isagoo Chelsea penaltiyo u qabanaya isagoo odaygu cidla dardarayeen baynu ogeynay laakiin caawa ayuu iska laalay ceebtina caawa iska dhaqay markuu maxaa la dhahaa xulkii qarankiisa uu badbaadiyay oo penalty u qabtay. cimaamadiisa lama haysan karo ninkaas marka caawa laga bilaabo la oran maayo Mendy waa oday penalty ma aha mar hadduu xulkiisii koobkii u qaaday championkiina uu ku soo darsaday. reer Masar ilaa hadda ooyaya ninkii Saalax iyo kooxdiisii oo ooyaysa Mane iyo xulkiisii oo faraxsan oo dabaaldegaya. intaasaan kusoo gabagabayn doonaa subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ta midna yaan la iskala bakhaylin culimo Allah